ninka gabadha xaaskaaga waa u naxariiso su'aal soo noqoto gabadha ninka inay u khidmayso waajib may ku tahay muku ahaan arrintaas clear ina aga jawaaban raay maanta طيب hoosh guri waa kala qaybin karnaa waxa la dhigi karaa hoosh guri waa badan tahay nadaafada hoosh guriga cunto karis hoosh guriga waa adeega hoosh guriga waa dharka la dhaqay hoosh guriga waa dharka la feereyna hoosh guriga waa hoosh guriga gabadha mas'uulka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن وناكسن مركلة iyo barnaamijkii qubanaha qoyska iyo Dr. Sheikh Ahmed Al-Yamani oo markale barnaamijkan marti ku ah barnaamijkan baartiyo kala duwan ayuu lahaan doonaa waxaad soo dhageysateen ama daawateen qaybtii hore ee ku saabsaneed dhaqaalaha 12 qodob oo inta aadan guursanin adi iyo xaaskaaga ama adiga iyo xaajigaagaba aad u baahan tihiin inaad ka wada heshiisaan دكتور مرلوات صدوا هذا بارك الله فيك ساشعية ولا الله داونا كل يوم السلامي الله يدين حفظي مال ودوكات كجوكتان وهاجاك إن dhaqaalaha san filayo dad badan ayaa soo dhaweeyay barnaamijkan waana maartay laga helay sidoo kale waxaan leenahay hadii wax su'aalaad ka qabtaan oo aad rabtaan in sheekha idin ka shaafiyo insha Allah waa la soo xiriiri kartaan ama qeybaha inboxka Facebook page-kiisa ama page-ka keyga ayaad soo dhigi kartaan qaybta inboxka halkaasna waxaa maartay anagana u awoodi doonaa in sheekha u soo gudbino isagana markaas jawaabta mudan idin siiyo insha Allah Dr. ama Sheikh Ahmed Al-Yamani qodobkii xiga iyo barnaamijkeeni qubanaha qoyska بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا الله ميل ودوكات كجوكتان وحيدكم سلام سنة أو قيم بدن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى وحان ويديسانينا برنامج كينا إنو كريو برنامج بركيسا فإذا هدف كان كلانا إلهي سبحانه وتعالى وحان ويديسانينا إنو قارسيو قلوبتين وحرجين إلهي سبحانه وتعالى أفره أستاذ ساشي أكتي لاست ويك برنامج كأو كسابسان مالي حولنا حولا كسابسان يسيرو كالقيبين يغنتي وبرنامج قضب هو آدم عن كوضع حضرني أنسوق بين ولا لبضن وصوت تعليقين بين يوتيوب هو أركي فيسبوك هو أركي تنوقفك وقدرنا ماشي صوت تعليقي وهو هذا هاي وقت طيب أنا حاسكي هدي أي شيء قيسو أو لعق أي سمي صوته why I have to pay her that's not fair واحد كلمة يسقط أو كسو قري طبعا that's not fair كلمة وصانع نقطة واي وهي أحكام إلهها كان وهي أحكام كسابسن إله سبحانه وتعالى كنيك المسؤولية لو دي بجبل هدونيك يا أنا قبيل إن بيح is not fair هدو يراهو إذا نبره وحيده سأنينا نقولي كشيء is not fair حتى waxay badii kartaa inaan dhalaha حتى is not fair marka is not fair وحافي عن وحي أحكامتي مسلمة هاي أحكامتي إلهي سبحانه وتعالى ونو حكم وحكه وناكسن والله مرحل ابن آدم كحكم الآن مصعون كرم ملاكن كتالي كونستيتوشن وكسعودة صح وضد هايوي جا سوعة تفير استشاعي جاري على سوق قدرتي جاس كذا كشوتي إنشورس إذا بحسي تربي وحلو رجي 35 مايل per hour الوود رجي ما كبدين كرتا ماي هداك بس معك وود عاي والله بس يا بود in patrolka uu ku qabto ama in kamerada ay ku qabato markii ku qabtaan maxaa helaysaa tikid iyo ganax dayb ma dhihi kartaa gaariga ana iskala xora isna fair ma dhihi kartaa so marka waxa leedahay sida tikidka iyo ganaaxi aad uga cabsatay Allah subhanahu wa ta'ala uga cabso kaasaba kasi weyn leena taas aakhirada tikidka duuga aga baxaysa mufta adduunka aga baxaysa taas aakhiradaada waay surveillance camera meeshan ku xiran qofku baqa camera ku xiran ku leeyahay marka qawaaniinka Ilaahay waxaan u baahanay inaan ixtiraamno oo qof walba uu qaato wallahi maslaxadiisa ku jirto qofkii diido aniga xukum maleeni laakiin qofkii si u taala marka kii koobaad wuxuu maaligu ku saabsanay qodobka labaad oo maanta aan rabnaa inaan ka sheekeyno oo dhalinyarta hadda guursanaysa ama dadka cusub ku saabsan oo hawsha guriga qodobka hawsha guriga xoolaha waa ka soo sheekeyna soo maaha hawsha guriga dhaqanahan waxaa leeyahay in aan dhaqaano biilka maxaa waxaan laga hadlaa wixii dhaqaale ninka mas'uul wixii hol guriga ninka mas'uulka laakiin waxaan u baahnaa inaan ka hadalno u baahanahay لأن الزمن كي ذاتك وأليس بدل الزمن كي نوإس بدلي وسيستم كود إس بدلي marka dhibka ugu badan maxaa pointigan oo soo qaad dhibka ugu badan oo dadka iimaanayo gabdhaha way daawanayaan way ka soo tacliiqin karaan kan ugu weyn waxa waa sheekh ninka wax ila ma qabto nimankan waa dhibsanay kalimaas markay maqlaan waa hawshaada qabso maxaa hawsh gurigayga kale uu leeyahay hawshaada qabso iidan wuxuu kale sheekh ninka miya caawiyo guri wax laga qabto طيب marka su'aashu is maxaa rabtaa inuu kula qabto su'aashu weydiinaysid iidan after sometimes waxaa confuse ku jiro
wax ay rabtaba ma garanaysaa in wax meela qabto tayib wal sometimes qofku ku su'aal weydiyo maxarta inuu kula qabto guriga hay la caawi tayib ii sheeg specific maxaa u baahan tahay she doesn't have it laakiin waxay rabtaa ninkan inuu tuso inuu caawinayo intaas waa intay rabto ninkiina lagama yaaba hadduu koob meel yaalo koob inuu soo qaado koobku ku cad waxaa inuu meesha aga tagaa laga yaaba uusan qaadina laga yaaba laga qaado marka howsha guriga dadka cusub dadka oo 10 sano ka badan qabi xoogo waa li soo gargaraac waa li isla qabsaday waxaan maleeyahay xoogo culeys badan ma ka jiro ama koobka meesha laga taga ama hala qaado laakiin dadka cusub waxaa rabaa inta cusub tihiin howshan guriga inaan ka wada hadashaan muhiim waay howsha guriga in laga wada hadlo muhiim jiddan waay aad muhiim tahay طيب هوش غوري waa kala qaybin karnaa waxa la dhihi karaa howsha guriga waa badan tahay nadaafada howsha guriga waa cunto karis howsha guriga waa adeega howsha guriga waa dharka la dhaqay howsha guriga waa dharka la feereyna howsha guriga waa waxaas dhan waa howsha guriga طيب waxaas dhan yaa iska leh reerka wada leh yaa mas'uulka inuu qabanayo طيب ilma imaadi cunuga koob bidaad cunuga koobaad waa kan ugu dhibka badan waaye cunuga loogu jecel yahay waaye laakiin khilaafka badan meesha ku yimaada kaas lana gabadhi maxaa jana jiin ahaan waa isbedeshay hormoon ahaan waa isbedeshay jismi ahaan waa isbedeshay gabar kaligeeda ahayd cunuga caloosheeda ka soo baxay jismigeeda waa isbedel hormoonkooda waa isbedel dabeecadeena waa isbedelaysaa qasbiyan waa isbedelaysaa kaligeeda ay way dul qaadanaysay maanta cunuga inuu junaysaa cunugan nuujinayso waxa laga inuu mantagaayo waxa la inuu naaska cabiina laga yaabaa inuu aanaha dhibaaya laga yaabaa waxaasna iida ka war hayso aw hello waxaan noo wax ka mas'uul ogeynaba laga yaabaa markuu guriga soo galo dhowr alaabti ma hagaagsan maxaa dhaaqada ma taale laakiin gabadhana maanta inay ku mashquulsan cunuga inay nuujinayso cunugan xanuunsan maruu ku mantago maruu ku dilqo maruu ku shubma laga yaabo inay ku mashquulsan duur markuu yimaad oo arko guriga tar inuu xanaagaaba laga yaabaybo baf maxaa bikarigan intuu yaala qadadi aaw qada maxaa loo karin waayay inuu ka xanaaga bilaaway marka howsha guriga waxaan dhihi lahaa yaa mas'uulka gabadha mas'uulka si waxaan dhahnaa howsha dhaqaalaha yaa mas'uulka ninka soo ma dhihin howsha guriga gabadha mas'uulka generally speaking واجب ميا أيضا السارن هوش جورج تاس بونتي كده أمانة واجب ما أمانة لكن general هم حربا قف بحربا دينا عدا قالها يا مسؤول كي واجب كته نينكا دينا هوش جورج يي واجب كته مسؤول كي جبر دواي يا مسؤول كي سؤال صون نقطة جبر نينكي نيو خدمة واجب مي كته مكو أهان أرنتاس كلير إن أجا جواب رأي ما أنت جبر ده نينكي هذا هوشيس جورجيس إن قبض واجب كته أرنتاس هل سيفي هل ودقيستو واجب يكون تحي سيدا إساقا أحسن بوينتي قد أمس سيدا أسيقا أي واجب يكون تحي إنو دقالها القرية أما ونخذو رجال القوامين exactly عدالة إلهي كمد معهن نينكين اللي يراهو بيلك قرية بحي قرية مسؤولك وحرن أديك بحي مركا قرية تيمانا قدر ذكرسو إن اللي يراهو عدالة إلهي كمد معهن أوكي نبي أدي حديث ير دليل يرانكو سينا وقبلها ربائني وحكو فهمان لأن قبلها قار لقى والي يا جرو مساكين لقى والي قار شيخ سوق شيء لقى إني كوالين شيخ جوجل على جاب إنه كوالي مسألة وحالة أو خلافي إن لوكين الميش لوكين على جاب هل وحارب حديث ربع اكتاسف يعني أوفرتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم عرورتي سجبده ووجع على فاطمة إيه هذا ما كتاجر نبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أوجع على فاطمة يا قبي إن أذيرك أوجع على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاطمة يدا شيء حسن إيه حسين سيدا شباب أهل الجنة يدا شيء فاطمة وجه إذا النبي حتى صعد يسوعني سي النبي وكل يسوعني سي النبي مركو فاطمة أركو أسو استاجي جري هبو سينجري جعل ما شو كقبل قبل ديسا مالي وماته وحيرة شقاله محيط لما تقال يا رسول الله قعمك يفير سي وجه جبل سان علي ugu khidmeynay tiri anada ninkii saan ugu khidmeynay oo galleeydu u shiiday oo cuntadu kina gacmankayga saanay noqdeen fi rasuulka ilaahay waxaan rabaa shaqaale isi i caawiso gabadha jeceshahay oo gacmankeeda gogo'ay hadii ku timaado hadaysan waajib ku ahaa lahayn war firiisa cali gabadha hayga dilan u dhihi lahaa ha ta dagaalaba ka dhalanaha nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri يا بنتي وشغاله وحكى في عمكو شيغا مركز ميسو حاتم اذكارت اقري سبحان الله صدني سدح الحمد لله صدني سدح الله اكبر صدني افر الهي وحكى خير بدن وكو بدلا ما شاء الله مديه النبي محمد صلى الله عليه وسلم علي وقبلي طنكو ما اهن واجيكو ما هوش انا قبنيسو هوش هذا قبسني عنتدا كرسو قبلي مدهن هدو حبيب كان محمد صلى الله عليه وسلم ديه واي ارنتاس كو ديه واي نبي حق مقريو
كمد ما النبي حقيقة ما قري وحي حلال حرام وحي حرام 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 وضحي وح ما قريو marka yi waajib ku tahay suuninka waajib ugu tahay ee gabadhan waajib ugu tahay waxa laga yaabaa dadka qaar kood in qaar loo fahamsiin leeyahay kor ninkan waajib uu bixin caleeshan xaaskiisa uu ku raaxaysana aqli ahaan oo hadan asi kalima raaxaysanayo may wala isla qabaa cunuga kaligiis ma iskale wala isla qabaa oo iida ilmaheeda ka jecelbo iida hatta ilaahay wuxuu yiri xaq ummak saddex mar iida bal siibo marka we have to be realistic cadaalada in laga tago ma aha teeda kale dadka qaar waxay daliishadaan in nabiga sallallahu alayhi wasallam uu reerka kaalmeyn jiray jazakallahu khair boontigaas muhiim waaye fiiri Aisha radhiyallahu anha markii ka hadlaysay aniga wax waxa fiican boontiga ma insclear laga dhigaa fiican kana fi khidma rasuul sallallahu alayhi wasallam ma qamaru sameeyay arintaas waaye shaqada fiiri general hadaan ku dhaw karo maanta usaa shaaciyo uu soo galay ma sha Allah miisku meesha ka qaaday usaa shaaciyo sometimes markuu soo galo khair Allah si miis markuu arko wuu hagaajin jiray macnaheeda asalkii ahayd inaa hagaajiyo aniga adi markaa timaad wax yar way caawinaysa laakiin asalka guriga shaqada yaa laha ummul mu'miniina iska lahayd nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam markuu wax u baahdo wixiisa hatta wixii kabtiisa wuu hagaagsan jiray ما لها يعني حس جكده نقول عنت لك ما لها يا مركو صوق الوحودي جر عنت متى عائشة ديني حتى رقنا فيه واحد دين تحس متى وح حاجر النورم الله ظهر رقنا نبي مركو جوري صوق له سؤال شو عائشة وحولي جر عنت متى الله إلهي هذا لما هاي يوميل ده هيسا نبي عنتو كرسنجي ما جرته نبي صلى الله عليه وسلم وحاسكي سو عاون جري أنا رجع وحالي حاسك عاوي بل سنة حبيبك راع أحمد وعاوي حاسكي وأقول جي كذا هول ولا قبنا وحن أباه أنربو لكن سؤال ماشي تعالى وحيت واجب ما يقول تهاي مسوا حاوى وعاون يقول تهاي تاسو تماشي تعالى تاسو تلوبه إلا فهم marka wixii caawisana gooniyo wixii waajibna waajiba marka gabdhaha dadka cusub hadda isguursanay maadaama arintan confuse badan uu ka jiro at the beginning of your life waxa ka fikirtaa ka wada hadashaan hooshan guriga si wada qabsanayna in la yiraahdo kala maqal heblo khair Allah ku siiyo wixii wuxuu dhigi karaa ninka mataqaan anything adeeg ku saabsan anything adeeg ku saabsan aniga soo adeegaya just example I'm bixin way doesn't have to be like that okay anything adeeg ku saabsan aniga soo adeegaya wax Allah wuxuu baahantii isheegana soo adeegaya that does not mean sometimes they waxaan inay soo adeeganayso macna ma diidayso iyadana waxay dhigi kartaa okay wax kasto ku saabsan cuntada waxaan ku saabsan aniga mas'uulka ah taas macnaheeda ma ninka sometimes inuu soo galo gurigiisa galo oo shaahigiisa inuu karsado qaataas macnaheeda madiinay diidaysa ma aha inay diidaysa ma aha wixii waxa marka at the beginning in la kala qaybsado la cad ilaa kulli gabadhi tiro listen man idageyso I don't play this game hoosha waa kala qaybsanay 50-50 haduu aqbalo 50-50 gaas laga rabaa haduu aqbalo 50-50 ga laga rabaa because asiga aqbalo soo ma inuu tiraaho kaliyo you know what aniga waa wax ma ku sheego hoosha ani ma qabanaaybo ani shaqaale ma ihi ma ku qabanaay waxa aad sameeyso soo habeenkii markaas soo mareysay pizza hata noo soo maadi hey habeenkii la yiraahdo kal maqaayada si noo soo maro kal المهم noloshooda hooshan guriga taale in la kala qaybsada muhiim waa aad weyn dibka jiro oo had guri 3 maalmood ku burburay example wuxuu ku burburay ma taqaana waa hoosha guriga la kala garan waay 3 days shay 3 sano ma 3 maalmood 3 bilama waa 3 maalmood waa todobadii gudaheed todobada xataa nuskeeda xataa lama gaarin والعادة خلافك ما هو وقتي بالله بربريتان كواي خلافك هبينك كوادو بالله ذيبو وحاول أروستك أروس مركي عصبي ما تقانا وأنت كلا دون الجوك هذا وين نينك حاجة هبينك علوش على قفرته مركي لقى قفته المسيو درين مركي أيقو سريت صار وحكوا يري can you please give me Sprite me صوب بحين كرتاعت العجدة هذا كان حلقف كمورينو إياه ninka iyo gabadho wada joogan markaan dhaxgalay waxaan ku tell me what happened gabadhana meeshii joogtay way fadhiisay markuu sheegay wuxuu yiri waxa dhacday habeenkii wada waxaan ku dhahay give me can you please give me hatta word was can you please give me Sprite from the freezer wuxuu yiri the way she act wuxuu yiri waxaan dareemay inay rabin inay samayso markaasaan waxaan dhahay aniga habeenkii koobaad waay waa baxay way istaagtay talaajadii way soo qaad iyadoo xogo jiidayso ay soo qaad markay keentay saas ugu tiri oo okay si aan munaasib ahayn ya ku dhimo mal dhigi jirna amal Soomaali hore ugu dhimo dhigi jira amal shiidoo dhihayso kala saano kale igu soo taagtay oo
وقعد أسينا كما في عنانين markay qaadato habeenkii waa qaado way subaxii markii la soo gaan soo gal waxaan dhahay waa xanuunsanay quraac ma noo sameyn kartaa gabadhi waa baqaraxday you know what I'm not a mate here ku tiraan shaqaale ku meehay jikada you know that meesha ma taqaana jikada waa go hard soo karso kafeega soo sameyso hal kale if you make one coffee for me I'll really appreciate it ugu dhahay hadda ana kafee igu soo dirto waan ku duceynaa wow xalaya la soo aqal galay yes isla halweenimadii waxa meesha ka dhashay madmadow exactly subaxiina waxa la iskugu imaaday cuntadii quraacdii subaxdii koobaad soo imaaday marka asiga markii intaas ay ku tiri markaas what do you mean muku sameeyna qoys shaqaale ku meey boy asina kelmo u raacay waxay tir listen am clear aan ku ah quraac marka aad soo sameyso qadam marka aad soo sameyso what's your job ku yiri marka waatan ku dhahay la kala fiicnaan wala ka fahma markii la wada hadlay waxa fiican عقلي جبادي ويل كحان ربع الدون كويلش جوجنا إنا فيرسه ويل كان كأقبشي نينك جبدها الدون كجوج تدن إنا فيرسه أجبدها أقبش الدومتين أكلا صوب بحذي how in the world هل إنسان ير إنه إذيه المامسي وحصلا وحدا واللي بهبين هذه وهريسي مركز يوم what's your job وكلها مركز ودي موت وحيت ما جاب وحيت روا just to come نناصير توزع إحنا بس that's my job اوكي نينكي markuu isla markuu hooyada uu soo wacay buuqa imaade hooyada soo wacday habeenkii labadii seexanayeen way soo wacday Axmed nink macquul ma labadiya I couldn't believe it reason ma taqaanay gabadhan diin ahaan gabadha quraan dhameysay waa diin ahaan maadi ahaan waa gabar wax baratay shaqaysato yarkan waa wax bartay diin ahaan bartay maadi ahaan jaamaca ka soo baxay shaqaysta waa labadoo professional job iyo diini job ay haystaan وهرميسن واي maalintaas mashquula ahay maalinta saddexaad aan u tagay marka what's going on aku dhahay what happened ninkan waa isku fili qof marka soo qad isku fishid furiha laga tuuray gabadhan hatta deena ready to open this mawdu' nihaiyan ninka wuxuu she cannot be my wife I don't want him I don't want this he cannot be my husband at all what meelaha sala kala istaag meesha ayaa okay then if you have you had already made a decision then let me go on bye bye ku dhax hooyada tir sheekhu ilaahay ka baqfariiso waxa raba inaan la hadasho okay tell me what happened intaanu ii sheegay gabadh markuu intaan sheegay waxa ku is that true of course he didn't say one thing wrong everything said true yes it okay marka waxaan can I ask you a question marriage maxaa u taqaanay ku dhahay do you have any responsibilities haba yarato inta la ekaato wax responsibility guriga ma ku leedahay no waxa ugu malihi ha gabadhaana dhehayso marka waxaan ku dhahay okay marriage maxaa ka taqaanay waxay tiri marriage waxay tiri ninkan waa is dooranay the only thing aan sugu imaanayn waxa waa sariirta iyo caruurta wada korsan other than that su'aala markii weydiiyay qofku xaafiyay masanta aqligiisana walaashay mugta waxaan ku dhahay markii lagu doonanay adiga ma doonad masiga doon heck no it asa soo doon si aan doonana aniga okay meher ma laga bixi yes meeqa waaye 10k okay adi ma bixin saabixino asiga bixiye okay gurigana dhahay this house oo qurxan wallahi waxaan ka nahay miis kursi aan wili lagu fariisana xataa yaalo kursi aan wili lagu fariisana marka waxaan ku dhahay gurigan contract ay gashin who's paying the rent he's paying it okay he's paying it oh ma sha Allah asaga bixinaa tayib alaabtan meesha taalo yaa soo gaday he bought it do you have anything waxay tiri just hadii la isku dardaro isna 1% waxay soo gaday ubaxi waxyaalo soo gadgaday laakiin do you know how much did he spend meeshan I don't know maybe 25-30 soddon kun ka baxday aroos ku jiro arooska lacagta ay bixisay okay waxaas dhan wuxuu sameeyay ku dhahay way aqli ahaan ku dhahay is it fair ku dhahay waxa inuu asiga sameeyo adiga wax sameeynin way aamustay way ka soo tagaan markii aamus waa ka sii gud waxaan ku dhahay who's going to pay from now on rentiga bixinay he will pay it marka waxaan ku dhahay cadaalad miyaa ku dhahay he will do everything inuu soo shaqeeyo gurigiisa ka shaqeysto markuu soo shaqeeyo kadib uu imaana wax karsado wuxuu karsanaa cadaalad ma noqonayso المهم sidii guriga ku burburay pointing marka waxa waaye intaadan aqal gelin ama habeenka koobaadba ka wada hadla
qodobkan aad looga hadlo xoolo aad laga hadlo kii horena yaa la iloobin dhaqaalaha dhaqaalaha yaa taas kan hal kii hor kan la isku sii xiro mid walba sii gudboynaa kaas waa sii gudbaynaa jaran jaro waaye so sheekh aad u mahadsan tahay haddii hal iyo labo daqiiqadan ugu yar aad ku sii dari lahayd oo qodobkan qodobkan soo maahan dhinaca oo waxaan rabaa mas'uuliyadda ku saabsan guriga ku saabsan waxaan rabaa labada qofood markii mas'uuliyadda xataa la qaybsanayo si ixtiraam loo wada qaybsado qof walba uu og yahay qofkan kale wanaagiisa iyo xumaantiisa uu yaqaano wax kastana waxaa loo baahan in dhinac meesha wanaaga laga fiiriyo ninka haddii maalan la kala qaybsay gabadha ay tiraa oo kale mas'uuliyaddeeda guriga waa qaadana mas'uuliyadda banaanka ka adkaaw ninka ma rabi hadhow inuu yiraaho kale mas'uuliyadda guriga waa I'm not going to do anything inuu yiraaho kale cadaalad doqonnimo meesha ugu dambayso waay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam sunnadiisa waxay markuu soo galo gurigiisa hadduu wax u baahdo asiga qabsan jiray kabihiis asaa qabsan jiray hadduu wax u baahdo asaa samaysan jiray gabadha waxeeda way ka adkeed laakiin hadduu asiga wax u baahdo asigaa samaysan jiray tayib taas macnaheeda ma ahan again inay gabadhays nin walba adiga waxaaga samayso nabiga uu samayn jiray waxaaga samayso ma ahan laakiin waxaa loo baahan yahay waxaa gabar shaqada inay qabsato tan kaloo rabo oo hal dardaarna rabo inaan nimanka aan dhaho nimanka oo rabo inaan kusoo gabagabeeyo hoosha maadaama gabadha waxaa dhan mas'uuliyadda lacagta ninka mas'uulka ah wax walba oo dhinacaas ku saabsan dhinaca guriga gabadha mas'uulka ah ninka walaalkii waxaa rabo dardaarna walaaltinimo inaan siiyo xaaskaaga waa qofta oo adduunka aad kasoo dooratay dumarka waxaa noola amray inaan u naxariisano waa daciifaad waaye miskiina waaye gurigay kuu joogtahay nin kale ma la hadli karto nin kale ma guursan karto adigaa soo guursatay meeshaanaa keentay waxay kaa mudan tahay inaad ixtiraamtid xaqeedan aa siisid xaqeedaa siinaysa hadal wanaagsan ula hadaysid sometimes inaad ka farxisid sometimes qofka waxaa laga hormoonkiisa isbedelo ustaashaaci meesha ugu muhiimsan meesha waa hadda gabar uur laho kale ninkan gabadhaada xaaskaaga wax kastaba kuu qabanayso uur yeelad way walacday wallahi sometimes iyadoo walacayso oo mantagayso iyo jikada gelaysa ninkeeda wuxuu hagaajiysaa waxay rabtaa xaqi inay ka soo baxdo haddii wax yar gaabas ninka waxaa laga yaabaa gabadha inta uu samayso inuusan fiirinin oo laakiin uu dagaal iyo buuq ku bilaabo وحسن وحناكس مع رسول صلى الله عليه وسلم حديث كيس وحير خياركم حديث كان سيفي عن دقيستا دتك إيدين كو أخيار سن ودتك إهل كوذا وناكسن دتك إيدين كو وناكسن ودتك إهل كوذا وناكسن واش ehelka marka inoo banbayaan ehelka xaaska waa meesha xaaska laga wado exactly. ma ahan ehelkii xadiidkan laga wado xaaska ka wada rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri wa ana asiga nabiga noo fasiro wa ana khiyaarukum li ahli ana xaasaskayga waa u fiicanahay qaraabada teeda gooni waa xadiid kala laga hadla laakiin ehelka xadiidkan uu ka hadlay xaaska waa qofka kugu dhow oo meeshan labada qof shaaciga labada qof isu dhow adduunka waa ninkii naagtiisa waa haddii walaalihii bointinga bis hadaa fahamtaan gabadha walaashii iyo ninka walaashii waxaa bointinga bis hadaa fahamtid waa isguursateen labadiina kuwa hor isku bilowdeen labadiinaan isku dambeynaysa hadalaa rabaa inaan kuu sheego labadiinaan isku dambeynaysin 7 caruuraa dhashay 4 wiil iyo 3 gabaraa dhashay 3 wiil gabdhihiina waa lagaa guursaday wiilashina waa kaa guursaday isku soo heray labadiina isku heray waxaa doqonnimo ah marka caruurtan yar meesha joogto inay cadaawo dhexdiina ka abuurto caruurtan yar in lagu mashquulo oo ninka garan waayo xaaskiisa si uu la sheekaysto waxyaabaha laga naxo waxaa ka mid ah laba qof nin aan gabar u guursaday naagtii marka ilmahay ku mashquulshaneed ninka xoogo nin wax barto ahay oo barnaamijyada train soo qaato wuxuu yiri walaale waqti aan soo helna hadda aan isbarano ilmahan ku mashquulsanahay wuxuu yiri wallahi kilmood waxaan ka baqaa uu yiri inay timaado maalin oo ilmaha naga taga ani aad isfahmi weynaa ka baqayna waxaan la fiirisay ku tiri ilaahi wuxuu qadaray afkiisa la saarnaa laga yaabo sometimes kelmada dhehis waxa lagu qabto afkiisa ilmihi waa la wada guursaday ilaahi wuxuu qadaray labadooda kaliin isku soo hiraan maamadii odayga khalaas muxuu bad guri mar computerka inuu iska qaato wuxuu iska qorto kafiga cabo laakiin hooyadii ilmihi sheekaysi jirto waa ka tagtay asiga soo haray waa imaanaysa waa la sheekaysan adi ma sheekaynaysid maxaa dhacay okay maxaa ku laba kaliin markii la isma garanaa isma fahmin markaas uu xasuusiyay حسوس كلمات والله حمان إيجا ما أهونه لكن هذا حنكوش يوم مقرنا حنكوش يوم مقرنا مركز تلاوي ماذا وحل على الأقل إصلاح بحاوة هذا إصبرت من جديد إصبرتها صدق سنة كذي بين إصبرتان وحنا سماها نينكا جباد حاسكا وقلنا حريصو حاسك مركيلونا حريصو يكون جعلاني سا قبلها لونا حريص أنت صار وين هذا وين قيب تاسي لبعض هالكاسم كسو عمرنا شيخ آداد وما سنتهاي برنامج كسيدة عاد نوجو بن بيانسي
ha ka maqnaanina. Qaybtii saddexaad ayaa inoo soo socota ilaa iyo waxaan gudaha u geli doonaa marka guriga la iskugu imaado 12 markaan dhammayno khilaafaadka waxa keeno ayaan baranaynaa si aan u helno reero Soomaaliyeed iyo reero muslimiin oo wada dhaqan oo wada nool iskuna faraxsan si aan u helno insha Allah. waxaan idinka codsanaynaa insha Allah inaad subscribe saarataan sidoo kalena follow dhahdaan si barnaamijyada soo socda aad uga bogataan insha Allah. aad u mahadsantahay. جزاك الله خير. بارك الله فيك. جزاك الله خير.